بلدين الدون هذا دولة بوكان دوين يجيبودا وعدا بلدين الدون هذا دولة بوكان دوين يجيبودا وعدا tiwaano wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xusuusu joog oo asbuuc waliba aad ka daawan doontaan channelka xusuusu joog media waxa uu ahaa abwaan hal abuurkiisa faneed laga dhex jeclaa gudaha Soomaalida marka aad maqasho magaciisa waxa durbo maanka ku soo dhacaya kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan magaciisu waa Cabdi Bashiir Ndabuur waxa uu noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1943 ilaa 1991 markaasi oo la aasay dawladnimadii iyo qarannimadii Curdunka ahayd ee muddo Afrika ka tilmaansaneed ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya abwaan Cabdi Bashiir Ndabuur waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sanadkii 1943 waxa uu ku barbaaray isla magaalada Gaalkacyo iyo nawaaxigeeda waxbarashadiisa dugsiga Quraanka ayuu ku qaatay magaalada Gaalkacyo sidoo kale waxa uu ahaa qof ku tixnaa culumta shariicada Islaamka in badan ayuuna ku sugnaa gobolka Mudug oo qaadanayay culumta shariicada Islaamka markii uu hana qaaday uu gaaray da'ada dhowr 20 sano ayuu wuxuu soo wareegay magaalada caasimadda ee Muqdisho sanadkii 1963 waxa uu sanadkaasi qortay ciidanka booliska Soomaaliya waxaana laga qoray isla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Cabdi Bashiir Ndabuur ayaa sanadkii 1965 waxa loo wareejiyay magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliya waxa uu ku sugnaa ilaa 1967 halkaas uu ka galay iskuulo uu ka baranayay maadooyinka Carabiga iyo Ingiriiska sidoo kale Cabdi ayaa intuu ku sugnaa magaalada Muqdisho wuxuu aad u bartay luqadda Talyaaniga taasi oo lagu tilmaamo inuu Cabdi ahaa qof ku hadli jiray saddex luqadood waa Talyaaniga Ingiriiska iyo Carabiga Cabdi Bashiir Ndabuur ayaa sanadkii 1968 waxa uu ku soo laabtay gudaha magaalada Muqdisho halkaasi ayuu ka sii watay shaqadiisii booliska ahaa maadaama uu ahaa shakhsi boolisa lagana yaabo in meel kale loo wareejiyo laakiin dawladdii kacaanka ayaa garatay in Cabdi Bashiir lagu daro kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan markaas ay wuxuu noqday shakhsi firfircoon oo ka dhex muuqday kooxda Cabdi Bashiir marka laga hadlaayo inuu ahaa shakhsi boolisa oo adeegay shacabka amnigana wax ka hayay ma ahayn oo kaliya shakhsi boolisa oo saldhiga ku sugan tuugada xira xabsiyadana geeya dhanka kale wuxuu ahaa shakhsi wax uriya oo ummadda Soomaaliyeed maskaxdiisana in badan ay ka faa'iideen taasi oo la ogaaday bilowgii waxtarkiisa faneed sanadkii 1978 sanad kadib markii dawladdii kacaanka ay ka soo laabatay dagaalkii qaraaraa ee dhex maray dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya sanadkaas 1978 ayuu bilaabay Cabdi Bashiir Ndabuur riwaayadihiisii taabagalay kuwaasi oo galay bahda maanso sanadkaas ayuu bilaabay curinta iyo sameynta riwaayadihiisii ugu horeeyay sidoo kale kuwaasi oo noqday kuwa taabagalay oo si weyn u soo jiitay dadkii waayajoog u ahaa sanadkaas waxa kamid ahaa sanadkaas kuwii maskaxdiisa ka soo maaxday laguna soo bandhigay golihii murtida iyo madadaalada ee National Theatre ayna hormuudka u ahaayeen kooxdii booliska Soomaaliyeed ee Heegan riwaayadii caan baxday ee Guur Qiyaano sidoo kale wuxuu soo bandhigay sanadkaasi riwaayadii ahayd Gantaala Jacayl labadaas riwaayadood ayaa waxa golaha murtida iyo madadaalada National Theatre lagu soo bandhigay sanadkii 1978 Cabdi Bashiir Ndabuur waxa lagu xasuustaa inuu sidoo kale curiyay heeso badan kuwaasi oo dhammaantood ka hadlayay wadaniyada oo ku tusinaysa in Cabdi Bashiir uu ahaa ruux wadani ah oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel dhammaantood waxay kamid ahaayeen dhaxalkii faneed oo ka tagay Allah u naxariistay abwaan Cabdi Bashiir Ndabuur jiilka hadda noolina ay mar waliba ku xasuustaan qiimaha iyo qaayaha dalkooda uu leeyahay waana kuwa mar waliba bulshadu ay isku guubaabiso sanadkaasi wixii ka dambeeyay waxa iska soo daba dhacay curinta iyo halabuurkiisa dhaxalkii faneed ee taabagalay abwaan Cabdi Bashiir Ndabuur waxayna u badnaayeen heeso shacabka Soomaaliyeed oo ugu tilmaamayay in dalka ayagu ay leeyihiin loona baahan yahay inay u istaagaan dhismihiisa iyo taabagelintiisa heesihii oo ugu tilmaamayay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isku duubnaadaan si ay horumar ku gaaraan waxa kamid ahaa heesta ay miraheedu kamid yihiin sidoo kale Cabdi Bashiir Ndabuur ayaa mar uu tusinayay shacabka Soomaaliyeed in dalku wax waliba in loo horo ay tahay uu curiyay hees taasi oo ay kamid ahaayeen ereyadeeda sidoo kale Cabdi Bashiir Ndabuur dhulka khayraadka uu dhex eegaago
ee ilaahay uu ku manaysto ummadda soomaaliyeed iyo siday uga baahan yihiin markii uu arkay dadka soomaaliyeed siday uga jeesteen inay dhulka qotaan oo beeraha ay wax ka soo saaraan kalluumaystaan xoolahana ay dhaqdaan maadaama saddexdaasi ay yihiin kuwo shacabka soomaaliyeed ilaahay ku manaystay kana badan haddii ay si dhab ah ugu istaagaan ayuu cabdi bashiir indhabuur isagoo curiyey hees la yaab leh oo miraheeda ay ka mid ahaayeen dal barwaaqo ah iyo dad baahan abwaanka marka aad sii raacdo taariikhdiisa faneed waxaad arkaysaa in badan juhdigiisii ugu badnaa uu geliyey sidii shacabka soomaaliyeed uu ugu tusaalayn lahaa in dalka uu u baahan yahay in daacad loo noqdo dibna loo dhiso si uu ula tartamo dalalka asaagiisa ah maadaama wakhtigaasi uu ahaa waddan afrika ka tilmaaman hal abuurkiisii faneed abwaan cabdi bashiir indhabuur waxaa ka mid ahaa heesihii uu tiriyey kuwaasi oo lagu xasuusan doono noqdayna kuwa taabagalay oo galay kaydka qaranka ee raadiyo muqdisho muddadii uu noolaa kuna jiray fanka oo ahayd 48 sano sidoo kale abwaanka ayaa curiyey heeso ay ka mid ahaayeen kuwa jacayla waxaa ka mid ahaa heestii ahayd dhabta miyaan ku saaraa oo ay qaadeen siciid miro xaydar iyo kinsi xaaje aadan marka aad tix raacdo abwaan cabdi bashiir indhabuur waa abwaan ay adag tahay inaad soo koobto taariikhdiisa inta buug iyo qalin aad u qaadato waayo wuxuu leeyahay taariikh fog abwaan cabdi bashiir indhabuur ayaa wuxuu ahaa maskaxdii hal abuureed kooxda ciidanka booliska soomaaliyeed ee heegan intii u dhaxaysay sanadkii 1972 ilaa 1991 taasi oo ku tusinayso miisaankii uu ku dhex lahaa kooxda iyo horumarkii uu la gaaray kooxda ciidanka booliska soomaaliyeed muddadii uu ku sugnaa abwaan cabdi bashiir indhabuur ayaa ilaahay gaarsiiyey da'aadda 77 sano waxa uuna dunida ku soo biiray dalkiisa oo xurnimo raadinayo kuna jira gumaysiga gacantiisa waxaana markaas bilowday halgankii lagu raadinayay gobonimada laguna doonayay in la helo dawlad madax bannaan oo Soomaali weyn ay ku midaysan tahay abwaan cabdi bashiir indhabuur ayaa dunida ka tegay sanadkii 1991 ayadoona magaaladii caasimadda ahayd ee Muqdisho dhan walba uu ka hulcay dagaal ayuu cabdi bashiir indhabuur ku geeriyooday xaafadda Afisiyoni ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir intaas ay noo joogto qaybtii labaad ee barnaamijkeena xusuus joog oo aad ka daawanayseen xusuus joog media